كفائدة كون جورسة لعج أتكو أنت هركير كو جورسة عميل بدن كبرنايو أصحابتي إذا أسكو أركينو محو فائدة أولية بالشدة والله وحو فائدة أولية قلمانتا artist كمركز لقصوت تجو كله وحان أرجنا bandhiga suuq weynaha Muqdisho waa suuq ama bandhig ay u wada siman yihiin guud ahaan qaybaha kala gedisan ee bulshada ha ahaato midka dhaqaalaha haysto iyo waliba midka dhaqaale yarida ay haysato ee aan ku filnayn dhaqaalihiisa waana bandhig cajiib ah oo lagu soo bandhigo qaybaha kala gedisan ee ganacsiga bandhiga suuq weynaha Muqdisho ayaa sanadkani waxa uu jirsaday 5 sano waa tahay daawadayaal waxaan gudaha u gali doonaa bandhiga suuq weynaha Muqdisho si aan wax ugu weydiino ganacsatada bandhigani ka faa'iideysanaysa waxa kugu soo dhaweynaya Hargal TV bandhiga suuq weynaha Muqdisho sanadkani maxaad ku soo bandhigteen waa bulshada Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim sanadka saddexaad aan ka qayb galaynaa bandhiga suuq weynaha Muqdisho Hargal TV waan soo dhaweynaynaa anaga waxaan uga soo qayb galnay dharka caruurta oo quality leh sidaad ka arkaysid oo boqolkiiba 50 aan bulshada ugu sameeyay discount waxaan rabnaa in bulshadana aan maaragtay aan ku dhiirigelino suuqa inay ka soo qayb galaan wax ka soo adeeg doontaan sida daraadda boqolkiiba 50 ayaan u sameeynay dharka caruurta iyo dumarka iyo shoppingka ayaan waxaan ugu sameeynay boqolkiiba 50 Ria Baby waxay rabtaa inay dadka ku soo dhaweyso suuq weynaha Muqdisho oo ku soo dhiiradaan shacabku ay ka faa'iideystaan fursadda la siiyay 3 maalmood assalaamu calaykum magacaygu waa Ridwaan Cabdullaahi magaca ganacsigana waa Caro Ridwaan Collection sanadan waxaan ku soo bandhignay ani sanadkii labaad ee taa horta ka soo qayb galaayo sanadan waxyaalo badan ka soo bandhignay sida shoppingkii oo dhameystiran dharkii wax noo dhiman ma lahan anaga asxaabteena oo daneynayna ay customerkeena halka sano waxa way anaga u daneynayno sanadkan sanadkii ugu horeysay waxaan uga soo qayb galay herbal ugaas herbal oo yar ka socdaaniga ugaaska herbal ما هيربل دلك جوديس لقوا سمية مثل دلك ديوديس على كاني ugaas herbal oil waa herbal dalka gudihiisa lagu sameeyay oo gacanteeda aan ku sameeyay muxuu faa'iido u leeyahay bulshada wallahi wuxuu faa'iido u leeyahay waxyaabaha dabiiciga oo u fiican tahay Soomaaliya bulshadeena qofkan in wadankeena wax soo saarkiisa banaanka loo soo bixiyo lana ogaado wadankeena inay waxyaabo dabiici ah laga heli karo lagana maarmo waxyaabaha dibadda ka imaanaya waxa kugu soo dhaweynaya Hargal TV maalintii labaad ee bandhiga suuq weynaha Muqdisho adika ahaan maxaad uga qayb qaadateen magaciina muxuu yahay والله باي wax badan ugu qayb qaadanay magaceena waa Quman Baby Fashion waxaan ugu qayb qaadanay agabka caruurta ee kala duwan dharkooda waxyaalaha ay caruurta u baahan yihiin sida dharka waxyaalaha ay ku cayaaraan waxyaalaha ay wax ku bartaan agabyadooda xitaa garangartay ku cayaar lahaayeen wana taala intaba sanadkan ma sanadkii koowaad oo idin yahay ma sanadihii hore ayaa bandhiga qayb ka ahaydeen wala sanadkii koowaad oo noo yahay sanadkan ma sanadkiin waa annaga ku dhawahay TV-geena marka aniga waxaan soo bandhigeynaa haddaan nahay Salim Stationery qalabka waxbarashada qalabka xafiisyada qalabka caruurta ku bartaan farshaxanka iyo sabuurada yararka isticmaalaan iyo buugta akhriska intaba ما سنتك يدين كوجو هريا أو أتكسر قيب قادتنا طبعا ها وسنتك نوجو هريا كسر قيب قادنا وحن رجينا الناس هذا بنا كسر قادنا مركب واحد بدنا صوب بنجنا دعاء لنا مجيء ترى قبل وحاب عبد الله حاسي دن ما أنت وحاول سوق قيب بنرجع بولشيد ما أنت وحاول سوق كردية قلمات أرتسكا بدنا وياك إن قلمات أرتسكا ذلك دي سلقة هرو مركز أوجد bulshada maanta waxa fursad u siiyay inay iibsadaan qalmaanta artiska qalmaanta artiska marka laga soo tago kale waxaan aragnaa boorar oo artist ay ku sawiran yihiin boorarkaas ma adiga si gaar u sameeyay ana si gaar u sameeyay farshaxankayga kamid yihiin oo maxaa la yahay artiska maanta bandhiga ugu talagalay sideen u aragtaa aad ahaan bandhig inaad ka soo qayb gashay والله أنا هاندر وحوارك بندق أدوان أسد معاميشنا فرصته قف جناستنا فرصته marka sidoo kale waxa fursad ay u tahay qof macaamiisha oo badana oo helin qalabka ayagoo raqiis ah ama maxaa la ayagoo tayo leh marka maanta waxa bulshada loo baaqayaa in ka faa'iideystaan ayaamahan socdo oo bandhigan maxaa la
si wacan loo qaabeeyay qiimo dhimis leedahay alaabta iyo sanay tahay inay ka soo qayb galaan kana faa'iideystaan dadkana uga faa'iideeyaan ayaga naftood bari waxaysan raqiis ku heleen imaanta uga faa'iideystaan annagoo ah fariiha online waxaan uga qayb qaadanaynaa sanadkan bandhiga suuqweynaha muqdisho maacuuntaasoo tayo leh maacuun tayo leh aan uga qayb qaadanaynaa taas oo lagu sameeyey qiimo dhimis aan ku sameynay 30% taas ayaan uga qayb qaadanaynaa waan ku faraxsanahay bandhiga suuqweynaha shirkada waxaa lahaa jibsiga oo Shiva waa company oo hadda cusub oo qolo oo Yemen waaye oo dalka lagu soo biyo jibsi oo dalka lagu soo biyo caruurta ay jecel yihiin hadda sanadkan noo hore oo bandhigan imaane waa ku qanacsanahay oo ku faraxsanahay inaan bandhigan qayb kamid ah noqono waxa uu qayb qaatay agabyo kala duwan sida xiraha boosayaasha iyo jaldi quraanka iyo jaldi kitaabka iyo taakooyinka isaakooyinka boorsadaha iyo sadkiisa wata iyo miiska iyo ugu soo qayb kale iyo agabyo kala duwan ما شاء الله magacaygu waa Leila Axmed Nuur TV-geena quruxda badan oo ku dhawahay waxaan ku soo bandhigayaa dukaankayga oo X-Kutaale wuxuu soo bandhigayaa maacuunta noocyada kala duwan ay nooc oo maacuun ay leedahay haday hoteelo tahay maqaayado tahay aroosyo tahay waxaas dadku u sii dheeriya waxaa jira qiimo dhimis aad u balaaran oo maalinteedii labaad ka faa'iideysta kuna guursada lacag aad intii hore ka yar ku guursada soona dhawaada maqaayadaha sidoo kale oo baaqi lahaay insha Allah iyo qof walba oo Ramadaanka danaynayo soo dhawaada 20% oo qiimo dhimis insha Allah